kusoo dhawaada casharkeeni taxanaha ahaa waxaan ku jirnay chapterkii matrix ayaynu ku jirnay gaar ahaan qaybtii determinantiga casharkan cashar ka horeeyay example ayaanu wax ka bixinay waxaynu proof gareynay iyadoo example ahaan ah waxaynu proof gareynay calaamaadka ay leedahay determinantiga waxaanu u bixinay calaamadii koowaad ayaynu u bixinay determinant waxaan niri properties of determinant ayaynu niri casharka hore si fiican ayaynu u sharxnay oo ayadoo proof ah oo determinantiga calaamadaha leedahay calaamadii koowaad bayna ahayd haddana calaamadii koowaad example-keedii aynu maanta bixino iyadoo xisaab ahaan aan bixino waxa lagu yiraahdaa halkan qiimee determinantiska yani waxa laga rabaa halka determinant 1 iyo determinant 2 ayaa laga rabaa qiimahooda haddii the value of determinant is isbedelan minus and alternate ayaa lagu yiri haddii isbedelan waa markii haddii if waxa lagu yiraahday if rows into column rows ka daa column ka dhigtid ama the column into row ka dhigtid marka waxa laga rabaa calaamadii koowaad waxay ahayd aan casharka hore ku soo sharxnay casharkan waxa la socda casharka hore example-kiisi weeye aynu proof gareynay casharka hore waxaan proof gareynay determinant a ayaa hadda kolisi ka soo qaad determinantigan waxaan ka wadaa matrix ayaa la siiyay matrix a ayaa la siiyay matrix a dan waxaan cadeynayaa hadda waxaan soo saarayaa determinantiga ayaa soo saaraya determinantiga matrix a determinantigeeda hadda ka soo qaad kan waxaan roonayaa matrix determinant a ayaa a1 ayaa roonayaa marka waxaan roonayaa det of determinant ayaa soo gaabiyay det of a1 waa inuu la mid noqdaa determinant of det a2 a2 dan waxa weeye waa markii laga dhigo hadda waxa weeyaan nidaamkan row weeye waa row marka nidaamkan haddaan marka hadhow nidaamkan row into column marka ku sameeyo waxaan rabaa in isku mid noqdaan determinant of a1 and determinant of a2 hadhow waxaan dhahayaa a1 kan a2 ayaa loo baxaya row iyo column ayaa ku sameynaya waxaan soo saarayaa determinantigeeda ayaan soo saarayaa marka waxaan rabaa labada determinant inay isku mid noqdaan casharka hore ayaa si fiican u proof gareeyay marka waxaanu sameynayaa waan ka shaqeynayaa waan raadinayaa waan xalinayaa example-kan waa calaamadii koowaad weeye waxaan oranayaa solution ayaan oranayaa sol ayaan soo gaabinayaa solution ayaan qoranayaa marka waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa matrix ayaan soo qaadanayaa badanaa determinantiga ayaa calaamada caan ku ah marka laga hadlayo practice-kan marka waxaan qoranayaa 1 2 3 0 not ama no tando marka waxaan sameynayaa matrix-kan waxay matrix a1 determinantiga ayaa raadinayaa determinantiga maxaynu leedahay qaacidadan ku xalinayna maxay determinantiga waxay ahayd soo ma ahayn determinantiga qaacidadii hore casharada si fiican baa ugu sharaxnay iyadoo faahfaahsan determinant maxaa lagu heli jiray determinant waxaa lagu heli jiray det a determinant of a1 oo kale ka soo qaad maxaa lagu heli jiray 1 kan oo kale ama a1 ka soo qaad a1 kan 1 kan oo kale boshka oo la a1 kan 1 row 1 column oo kale ka soo qaad 1 row 1 column brackets waxaan oranayaa cofactor dash cofactor ayaa soo gaabiyay ama haddaan qoraa waa caadi u qoro waxa weeye cofactor bracket waan furanayaa si fudud ayaan rabaa inaan qoro cofactor of a1 bracket ayaan ku xiriyaa plus waan oranayaa plus casharka hore ayaan si fiican ugu sharxay waxaan oranayaa b ama waxaan oranayaa a1 muhiimadda waxa weeye waa positionka a12 weeye a12 bracket ayaan furanayaa
1 كان 2 waa row 1 column 2 weeye cashar kale ayaan si fiican u sharxay haddaa faahfaahin badan u baahan tahay cashar kale aad cofactor dash dash cofactor ayaan kasoo gaabshay inta of a oppositionka os maxaa weeye a1 2 weeye a1 2 2 ayaa u qorayaa bracket ayaan ku xidhayaa plus ayaa oranayaa halkaas tayo buuxsantay maxaa oranayaa a1 3 numberka isbeddelaya maxaa weeye numberka isbeddelaya 3 waa rowska weeye row weeye bracket cofactor maxaa oranayaa cofactor soo gaabinayaa cofactor of a inta ay la mid tahay waxaa oranayaa 1 3 ayaa oranayaa a1 3 ayaa oranayaa marka halka ayaa ku gaabinaynaa because waxa weeye waa 3 row numberka muxuu ku tarjumaya numberka isbedelaya waa column hadda waa 3 column halkan waa column 1 column 2 waa 3 column column 1 column 2 column 3 weeye saddexda column weeye haddaynu si kale u qorno aan kalarka bedelo dad ayaa isku dhex daraya isku fahmad isku mid maahan waa column 1 column 2 column 3 waa saddexda column marka determinantiga inta ayaa lagu helaa waa kan a1 kan position kan 1 maxaa weeye waa 1 row halkan haddaad rabtid inaad ogaatid kan muxuu ku tarjumayaa wuxuu ka tarjumayaa numberkan haddaa rabtid kan oo kale ka soo qaad haddaa rabtid waxa weeye waa row ayaan ka wadnaa row kan kalena haddaa rabtid waxaynu ka wadnaa column ayaynu ka wadnaa column taasi kale u qoro qalin muuqanay ku qoro column weeye column waa column marka waxa isbeddelaya kana hadda tuudan waxa weeye waa column weeye waa column waxa isbeddelaya waa column hadda waa column 1 column 2 column 3 hadda 3 halka ayaa u jeednaa waa column marka saas ayaa sameynaysaa waa a1 kan ayaa oola a1 kan waxaa oola haddaa rabtid inaad ogaatid hadda linekan waa row 1 sax linekan kalena maxaa weeye artan kale linekan waa row 2 lineka kalena maxaa weeye waa row 3 linekan kale waxa weeye waa row 3 waa row 1 row marka linekan korna marka laga fiiriyo waa column joogtaha marka formula ayaa ku apply karaysa determinant a inta ay limta marka waxaan raadinaa determinantiga ayaan raadinaa haddaan qoro determinantiga aan raadiyo waxaan oranayaa formuladii kale ahayd cofactor maxay noola mid tahay cofactorkii maxay noola mid tahay cofactor determinantiga waxaa soo hoosgelaya cofactor sidaynu halkaa uga jeedno marka cofactorka maxay la mid ahaan jiray cofactor of a1 markaa kala raadinay maxaa oran jirnay waxaa oranaynaa waxay ahayd minus 1 row plus column sax waxay ahayd row ayaa horeeya sama markaste plus column times minor ayay ahayd times minor ayay ahayd sax marka cofactorkan waxaynu ku helaynaa cofactorkan sayna halkaa uga jeedno cofactorkan waxaynu ku helaynaa inta ayaynu ku helaynaa row plus column marka waan soo koobayaa dheereemayo casharka ayaa iyadoo faahfaahsan ku helaysaa marka waxaan sameynayaa hadda iyo booska iyo oo lah a1 kan marka hore cofactor aan la soo baxaa haddaan sharxo cofactor ayaan la soo baxaya cofactorska marka cofactors hadda kale a11 maxay la mid tahay cofactor haddaan qorto cofactor of a11 maxay la mid tahay cofactors of a11 waxa weeyaan
position kaas waa row 1 iyo column 1 halka maxay ka tarjumaysaa kan muxuu ka tarjumayaa kan wuxuu ka tarjumayaa waa row xarafka hore waa row kan dambana waa column ayuu ka tarjumayaa marka hadda row 1 iyo column 1 halkan 1 kan ay ku kulmaan marka waxaan oranayaa -1 ayaan qoranayaa -1 waxaan isku darayaa row iyo column-ka rowgan kan labadan ayaan isku darayaa oranayaa 1 + 1 times minor ayaa ku dhufsan sax marka minorka maxaa sameynayaa minorka waxaan sameynayaa minorka maxayna ku heli jir minorka hadda booska row 1 iyo column 1 iyaga oo la row 1 iyo column 1 waxa ay kulmisaa 1 ka ayaa kulmiya marka minorka maxaa ku heli jirnay minorka waxa weeye waa wixii aan relation la wadaagin row ahaan iyo column ahaan la wadaagin hadda 1 ka ayaa row ahaan column ahaan yaa la wadaaga column ahaan line ka ayaa la wadaaga row ahaan line ka ayaa la wadaaga wixii ka soo haray ayaa minor lahaa minor marka waxa ka soo haray every 6 9 ayaa ka soo haray inta ayaa ka soo haray intaan ayuunu qaadanaa every 6 9 ayaan qaadanaa marka waxaan oranayaa minorka muxuu la noqday waa ever 6 8 9 ayuu la noqday equal maxaa oranayaa -1 kan ayaan isku darayaa 2 way sax marka waxaan oranayaa first first ayaa isku dhufanayaa labadee marka hore isku dhufanayaa waxa weeye labadan isku dhufanayo labada ayaa isku dhufanaya marka hore ever ayaa 6 ku dhufanaya haddana 8 ayaa 6 ku dhufanaya saa ayaa sameynaya marka waxaan sameynayaa ever ayaa 6 ku dhufanaya bracket ayaan furanaya bracket ever ayaa wax ku dhufanaya 9 minus ayaan qoranayaa minus ayaa la qortaa markasta 8 ayaa wax ku dhufanaya 6 marka maxay noqonaysaa hadduu kan powerkiisu noqdo even ila laba jeer ayuu isku dhacay even ayuu noqday even waxa ka waa 3 isleeg ayuu noqday maxaa soo baxaya +1 ayaa soo baxay ila 1 kisma bedelo soo ama waxaan oran karaa minus hadaa minus ku dhufto maxaa soo baxa -1 hadaa ku dhufto -1 waxa soo baxa +1 ayaa soo baxa laakiin plus-ka hadduu halkaan kala wan yahay minus-kan markaas hadduu powerkiisu even noqdo maxaa soo baxa positive ayaa soo baxa marka haddaa rabto waan muujin karaa ama muujin karid muhiiman wax soo baxaya ever oo laga jaray labada marka isku dhufto waa 48 sax hadaan khaldanay 48 weeye hadda maxaa soo baxaya equal maxaa soo noqonaya waa -48 marka cofactor of maxay la mid tahay cofactor of maxay la mid noqotay cofactor of maxay la noqotay a11 ka ayaa olay 1 ayaa ola cofactor of 1 maxay soo baxay -48 ayaa soo baxay -48 ayaa soo baxay -48 ayaa soo baxay cofactor of 1 maxay soo baxay -48 hadaa soo saaro cofactors a12 gan a12 hadaa soo saaro cofactors of a12 waa tan ka ugu qoran cofactors of a12 cofactors of a12 hadaa soo saaro marka hore hadaan qorto cofactor of a12 يعني row waa column 2 ayaan ka 2 daas maxay ka tarjumaysaa column 2 ayay ka tarjumaysaa sababta waxaan leeyahay kan xagga numberka xagga soo xiga waa column kana waa row hadana muujino halka cawsha ayaa lagu muujinayaa kan waxa weeye 1 ka waa row ayuu ka tarjumayaa 2 ga muxuu ka tarjumayaa column ayuu ka tarjumayaa marka cofactors of a12 maxay la mid tahay waxaan oranayaa -1 ka ayaan soo qaadanayaa -1 ayaan soo qaadanayaa -1 ayay la mid tahay rowgan isku daray 1 iyo 2 isku daray 1 + 2 maxaa raadinayaa minor ayaa raadinayaa sax ila qaacidada saa ahayd minorka ayaa soo raadinayaa a12 yaa oola numberka oola yaa weeye hadaan u tagno a12 waxa oola 2 ayaa cusub because waa 1 iyo 2 because hadda numberkan ka 1 rowga ayaa horeeyay
column ka ku xigay marka waa 1 iyo 2 ayaa hesha marka 2 yaa la wadaaga column ahaan leenka ayaa la wadaaga row ahaan leenka ayaa la wadaaga inta la wadaagana maxay niri minor ayaa la oran jiray waa 4 iyo 6 iyo 7 iyo 9 marka wixii la wadaagin minor ayaa la oraa marka minor of 2 maxay noqonaya minor of 2 wuxuu noqonaya 4 iyo 6 7 iyo 9 7 9 weeye intaas weeye marka waxaan sameeynaa intaas ayaan soo qaadanaa 4 iyo 6 7 9 waxaan soo qaadanayaa 4 iyo 6 4 iyo 6 7 9 ayaan soo qaadanayaa maxaa la mid tahay marka waan raadinayaa caad ayaa wax linayaa biogeographic system waxaan oranayaa -1 labada marka isku dar maxaa weeye 3 marka hore ayaan isku dhufanayaa labada ayaan isku dhufanayaa 4 ayaan isku dhufanayaa marka waxaan oranayaa 4 times 6 ayaan oranayaa 4 times 6 minus ayaan oranayaa 6 lagu dhuftay 7 6 lagu dhuftay 7 bracket ayaan ku xiriyaa equal marka -3 gan muxuu la noqday -3 gan -1 power -3 inta maxay la noqonaysaa -1 power -3 marka kan powerkiisu way soo marka -1 kan 3 jeer ay isku dhacayaan 3 jeer haduu isku powerka ma muxuu noqday waa odd way powerka odd noqday marka maxaa isla soo baxaya isla -1 ka ayaa soo baxaya marka waxaan qoranayaa intay malayka waxaan qoranayaa -1 ayaa qoranayaa bracket kan ayaa furayaa labadan isku soo dhufo waxay noqonaysaa 24 minus laga jaray minus kan soo qaadaya 6 maxaa ku filaya intaan waa 42 baa filaya waa 42 hadii aan khaldanayn marka maxaa oranayaa intaan soo kala jir intaan waa soo kala jirtaa marka maxay noqonaysaa hadaa soo kala jirtid saa u malaynaya waxay noqonaysaa 18 hadii aan ku fiiriyo calculator-ka waxay noqonaysaa minus laakiin markaas maxaa qaadanaysaa numberka weyn ayaa wuxuu qaadanaya calaamada numberka weyn ayaa calaamadiisa qaadanaya marka waxaan oranayaa -1 ka ayaan soo qaatay kan ayaan soo qaatay bracket ayaan furayaa waxaan oranayaa 24 oo laga jaray 42 ayaan oranayaa marka waxay noqonaysaa -18 sidaan sheegay -18 waxaan iska hubinayaa mogta hubsimo hal ayaa la siistaa marka waxay noqonaysaa -1 ka hadaa inta ku dhufto isma bedelay laakiin labada minus ayaa isku dhacaya minus hadaa minus ku dhufatid maxaa soo baxa minus hadaa minus ku dhufatid waxa soo baxa plus ayaa soo baxa marka waxaan oranayaa waa +18 plus laba muujiyo waxaan oranayaa marka +18 marka inta maxay la mid tahay inta wax la mid tahay cofactors of 2 ay la mid tahay cofactors of 2 ayaa noo ooshay halkaas position ka number no ole maxay noqonaysaa 18 12 wax noo olay wax noo ooshay 2 ayaa noo ooshay marka waxaan qoranayaa 2 ayaan qoranayaa cofactors of 1 2 equal inta ay la mid tahay 18 ay la mid tahay maxaan soo saaranayaa haddana kan ayaa soo saaranayaa cofactor of 1 1 3 marka formulada halkan waxay A13 cofactors of A13 hadaan soo gaabiyo waxay noqonaysaa cofactor of 1 A13 ama sida kale hadaan qoro eeda yar hadaan qorto A13 3ga maxaa weeye waa column 1 kan maxaa weeye waa row marka equal ayaa oranayaa waxaan oranayaa -1 waxaan isku darayaa 1 plus ayaa oranayaa 3 labadan ayaan isku darayaa sax minor ayaa la soo baxayaa minorkii marka waxaan sameynayaa minorka ayaan tegayaa row 1 1 3 yaa oo leh 3 ayaa hesha marka yaa la wadaaga column ahaan ayaa la wadaagtaa
intaan row ahaan ila wadaagtaa marka intaan la wadaagayaa way minor of 3 markaan soo saarto maxaa oranaysaa 4 eber 7 8 sidii ayaa u saaraysaa wadada ayaa maraysaa marka waxaan sameynayaa waxaan oranayaa 4 ayaan qoranayaa eber 7 ay ahayd haddaan xasuusto 8 7 ay ahayd marka waxaan oranayaa sidaa ayaan qoranayaa equal marka waxaan oranayaa -1 power 4 kuwa maxaa ku sameynayaa qaabka ayaa isku dhufanaysaa labadan ayaa isku dhufanaysaa kabacdi haddana ayaa isku dhufanaysaa labadan ayaa isku dhufanaysaa hadhow waana ka jaraysaa labadan wax ka jaraysaa marka waxaan oranayaa bracket ayaan furanayaa maxaa sameynayaa haddii aan bracket furto waxaan oranayaa 4 oo lagu dhuftay 8 labadan ayaa isku dhufanayaa oo laga jaray 4 waa isku qoray 4 oo lagu dhuftay 8 ayaa oranayaa oo laga jaray eber oo lagu dhuftay 7 marka maxay noqonaysaa isla numberkii ayuu noqonayaa kan muxuu noqonayaa powerkiis muxuu noqday even ayuu noqday maxaa soo baxaya positive ayaa soo baxaya marka waxaa oranayaa +1 ma muujinaa wax weyn ma ayna muujino +1 intaa waxay soo baxaya +1 ayaa soo baxaya +1 wax ma bedelayo isbedel ma sameynayo marka waxaa oranayaa 4 haddaan 6 ku dhufto 4 haddaan 6 ku dhufto wax weeye waa 32 صح eber 7 haddaan ku dhufto maxaa weeye isla eberti marka waxaa soo baxaya 32 ayaa soo baxaysa marka maxaa soo baxaya cofactor maxaa soo baxay cofactor of maxay soo baxay booska ayaa oolay 1 3 waxa oolay 3 ayaa ooshay صح 3 ayaa ooshay cofactor 3 inta ay la mid tahay marka maxaa la soo baxay cofactorada ayaa la soo baxay marka maxaa raadinayaa determinant marka waxaa la dhahayaa determinant waxaa oranayaa marka det ayaan soo qaadanayaa determinant det 1 det a1 ayaa oranayaa equal maxay la mid tahay waxay la mid ahayd booska ayaa ii oolay a1 oo lagu dhuftay cofactorkeeda a1 maxaa ii oolay 1 ayaa ii oolay oo lagu dhuftay soo maahan cofactorkeena a1 maxaa soo saaray cofactorkeena waxaa soo saaray -14 cofactors of a1 soo saaray -14 waxaa oranayaa 1 lagu dhuftay bracket ayaan furanayaa -14 oo lagu daray formulada halkan maxay ahayd oo lagu daray soo maahayn oo lagu daray a12 cofactors of a12 a12 oo lagu dhuftay cofactors of a12 marka waxaa oranayaa a12 horta a12 yaa oola 2 ayaa oosha isla cofactorkeedana maxaa weeye haddaa egtid isla cofactorkeedana waxa weeye isla cofactorkeeda waa 18 صح marka waxaa oranayaa plus 2 ayaa ooshay haddaan furo bracketka maxaa weeye waa 18 oo lagu daray bay ahayd formula soo maahan cofactors lagu daray cofactors of a13 and cofactorkeeda a13 iyo cofactorkeeda a13 waxay oosha 3 ayaa oosha iyo cofactorkeedan intee weeye cofactorkeeda waxa weeye -2 weeye -2 marka waxaa soo baxaya 3 oo lagu dhuftay 32 marka maxay la noqonaysaa 1 haddaan ku dhuftay -18 waxaa soo baxaya isla 18 ayaa soo baxaya 1 ku isbedel ma sameynaya inta haddaan ku dhuftay maxay noqonaysaa waxa weeyaan +36 intana maxaa weeye +96 waa 96 weeye maxaa ii soo baxaya determinant det of a1 maxaa ii soo baxaya
intaan aan soo waxeeyo aan kala jaro marka inta labadan haddaa soo kala jaro waxaa ii soo baxaya ama waxaan samayn karaa labadan isku dari karaa sharciga polymerse ayaan raaci karaa laakiin waxaan samayn karaa haddaan labadan soo kala jaro waxa weeye halkaan waa 2 halkaana waa 1 waxaa ii soo baxaya waa 1 iyo 2 oo lagu daray waxaan ku daraya 96 haddaan sii kala jarana waxaa soo baxaya 4 numberka weyn ayaa calaamaddiisa muujin doona halkaan ku darweeye marka waxa weeye 4 84 marka intaan noo soo bixin haddaan isku hubino aan calculatorkan gelino waxa weeyaan minus 48 waxa weeyaan minus 48 plus 36 waxaan rabnaa si fudud inaan uga shaqeyno moogtahay oo isle waa 84 84 determinantiga haddaan soo saarno waxay noqonaysaa intaas waa 84 weeye si ay wax u khaldan yihiin haddaan khaldanayn si ay wax u khaldan yihiin intaan minus 48 xisaabta ayaa si khaldan isku dhuftamiyaa 96 intaa waa 36 minus 48 minus 48 inta maxaa weeye waa 2 alif soo inta waxa weeye minus 48 inta waxa weeye 2 alif marka determinantigan xisaabtan haddaan ku noqdo 1 2ga inta maxaa ii soo baxaya inta waxa weeye 42 haddaan inta ku noqdo inta haddaan u noqdo casharkii waxbaa si u khaldan haddaan fiiriyo 1 2 relation waxaa la 4 iyo 6 7 8 marka 4 iyo 6 way qoran tahay 4 iyo 6 iyo 7 4 iyo 6 7 9 halkaan ayaanu khaldnay sorry halkaan ayaan khalday casharka xisaabta halkaan ay iska qabsan weyday meeshaan ay iska qabsan weyday halkaan maxaa weeye waa 9 weeye 9 weeye halkaan muxuu noqonayaa haddaan saxo waa 9 marka intaan haddaan fiiriyo haddii intaan fiiriyo marka 4 haddaan ku dhufto 4 9 haddaan ku dhufto maxay noqonaysaa 4 9 haddaan ku dhufto inta haddaan tirtiro inta ayadan haddaan tirtiro ansaxo raalli ahaada waxay noqonaysaa inta sorry inta waxay noqonaysaa inta haddaan tirtiro aan 9 ka dhigo 9 haddaan ka dhigo 4 9 lagu dhuftay soo 4 9 lagu dhuftay 4 9 lagu dhuftay 4 9 lagu dhuftay maxaa weeye waa 36 waa 36 okay haddaan intaan tirtiro waan ildoofay ildoofku iska badan yahay haddaan inta tirtiro 36 marka 4 9 lagu dhuftay maxaa weeye waa 36 sax 36 haddaan qorto 36 marka 4 9 laga jaray maxay noqonaysaa 4 9 laga jaray isug marka cofactors of A2 marka waxay la mid noqonaysaa inta haddaan tirtiro
inta haddaan tirtiro inta waxa weeye waa in la tirtirayaa marka waxay noqonaysaa inta haddaan soo kala jaro waxay noqonaysaa waa -6 waaye -6 weeye hadhow maxaa kusii dhacaya haddaan qorto raalli ahaada -6 waa -6 halkan -6 ayaa inta isu baxaysa resultiga inta isu baxaysa maxaa weeye labadan marka soo kala jaro -6 -6 marka waxay noqonaysaa positive 6 ayay noqonaysaa positive 6 ayaa isu baxaya marka intaan cofactors of A12 ay yahay sax marka hadda halkan jawaabta u tago halkan ayaa khalad ka jira marka inta maxay noqonaysaa inta tirtiro ayadana inta haddaan tirtiro inta tirtiraya marka waxay noqonaysaa A12 intana maxay noqonaysaa 6 ayay noqonaysaa editingka dhibaya hadhow waxaan saan u samaynayo editka ayay noqonaysaa marka inta maxay noqonaysaa waa -6 ayay noqonaysaa no positive 6 ayay noqonaysaa positive 6 ayaa isu baxday sax A12 marka inta maxay noqonaysaa halkan waxaa isu baxaya -48 oo lagu daray plus 2 alif oo lagu daray 96 ayaa isu baxaysa marka inta resultiga isu baxaya maxay noqonaysaa haddaan labadan soo kala jaro marka hore haddii aan soo kala jaro maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa -48 oo lagu daray plus 12 oo lagu daray 96 maxaa isu baxaya 60 ayaa isu baxaysa inta maxaa isu baxaya 60 ayaa isu baxaysa positive 6 positive because numberka weyn labada number aad u weyn ayaa waxay noqonayaan positive ayaa ah waxaa isu baxaya 60 ayaa isu baxaysa determinant of determinant A1 maxaa isu baxay dad baan soo gaabay determinant ayaa soo qaatay A1 maxaa isu baxay 60 ayaa isu baxday resultiga ayaa haya marka waxa hayaa hadda matrixkan waxa hayaa inta ayaa haya answerka waxa isu baxay dad A1 waxa isu baxay 60 ayaa isu baxday marka waxa rabaa markii la sameeyo halka maxaa noocad rows to column markii la sameeyo marka inta maxaa ku sameeynaya taan qaato dad A1 ba qaadanaya waxa ku sameeynaya row to column ayaa ku sameeynaya marka A1 hadaa soo qaato A1 waxay la mid ahayd intii la mid ahayd haddaan qorto waxay ahayd A1 2 3 4 ever xoogaa raali ahaada waqtiga dheer waqtiga wuxuu dheeraanaya moogtaa wax rabnaa si tartiiba oo la fahmi karo inaynu u sharaxno xisaabta waqtiga aad bay u dhuntaa laakiin faa'iidadu aad bay badan tahay marka intaa waxay la mid tahay det A1 marka waxaan rabnaa inaan ku sameyno row to column oo la soo baxno A2 baa la soo baxaynaa marka waxaan sameynayaa ilaa cadee baa la yidhi inay wax isbeddel ku dhaceen haddii row to column loo bedelo determinantigeeda marka hadda intaa maxaa haysanaa laynkan waxaa haysanaa row 1 laynkan waxaa haysanaa row 2 marka waxaan sameynaynaa example ayaan wax ku sameynaynaa hadda ka soo qaad control soo marka waxaan sameynaynaa laynka rowga waa column ka dhignaa laynka rowga waxaan ku dhignaa ka soo qaad laynka rowga laynkaas row ma soo ma haysto ka soo qaad waxaan haystaa R1 kan waa R1 ka wada R3 kan yani haddaan muujiyo
waa r1 r2 waa row 2 iyo row 3 row 3 waa leenka dambe marka r1 maxaa haystaa row 1 waxaa haystaa 1 iyo 2 iyo 3 baa haystaa sax marka waxaa haystaa 1 iyo 2 iyo 3 baa haystaa marka maxaa ka dhigayaa column ayaa ka dhigayaa column see noqonaya column wuxuu noqonayaa sida tan haddaan ka dhigo noqonaya 1 to waxaa ka dhigayaa column ayaa ka dhigayaa oo a2 yahay column ayaa ka dhigayaa column ayaa loo baxayaa kan maxaa ka dhigayaa 1 ayaa soo hormaraya si u kala horeeyaan ayaa kala hormaraya haddana maxaa soo qaadanaya row 3 maxaa waaye row 3 hadda soo qaato ama row 2 hadda soo qaato si u kala horeeya ayaa kala hormarinaya row 2 maxay la mid tahay row 2 waxay la mid tahay 4 eber 6 ayay la mid tahay sax marka maxaa sameynayaa row 2 maxaa ka dhigayaa column 2 ayaan ka dhigayaa column 2 waxay la mid tahay 4 eber 6 waxaan ku xijinayaa row 3 ayadana maxaa ka dhigayaa row 3 sidaan kale ayaa soo qaadanaya ayadana waxaa ka dhigayaa column 3 ayaa ka dhigayaa maxaa oranaya 7 8 9 ayaa oranaya maxaan ku xiranayaa bracket ayaan ku xiranayaa maxaa la baxaya a2 ayaa la baxaya a2 marka a2 maxaa isoo baxay haddaan soo qaato a2 waxaa isoo baxay 1 4 7 2 eber 8 3 6 9 ayaa isoo baxay marka maxaa raadinayaa ayadana determinantigeeda ayaa raadinayaa determinant maxaa lagu heli jiray haddaan formulada u noqono determinant maxaa lagu heli jiray determinant inta ayaa lagu heli jiray laakiin halkan maxaa ka dhiganayaa a2 ayaan ka dhiganayaa a2 ilaa waxa raadinayno waa a2 soomaha waa a2 raadinayno waa a2 maanta oo tii hore ka duwan because isku mid maaha way kala duwan yihiin isku value maaha waxaan kala bedelnay aniga kala bedelay rowgii waa column ka dhignay marka waxaan dhahayaa a11 booska ayaa oo lah 1 ayaa oo lah haddaan fiiriyo waxaan oranayaa halkan maxaan oranayaa waa row 1 halkaasna maxaan oranayaa waa column 3 waa column 2 waa ka wadaa ila column 2 weeye column 3 dhinacana maxaa weeye waa row 2 ka kooban yahay iyo row 3 marka maxaa sameynayaa 1/4 marka waxaan oranayaa a11 yaa oo lah booskii cofactorkii waan raadinayaa sidaan ku naqaanay wadadii kala maraya waxaan oranayaa cofactor of a11 yaa oo lah cofactorka ila marka hore waxa la soo baxayna cofactorska Soomaaliya sidaan ku naqaanay determinantiga waxa ku naqaanay inaan la subxana cofactorska marka hore marka waxaan sameynayaa waxa la soo baxaya cofactorska ayaa la soo baxaya waxaan oranayaa a11 yaa oo lah marka maxaa isku darayaa labadan ayaa isku darayaa waxaan oranayaa -1 minus-ka ayaan soo qaadanaya ila minus qaacida lagu heli jiray cofactors maxay ahayd قاعدة cofactors of a2 marka raadinaya hadka hadaya a2 -1 row plus column times minus a1 sidaas ayaan raadinaya marka waxaan sameeyaa waxaan isku darayaa labada ayaan isku darayaa 1 plus 1 ayaan oranayaa oo lagu dhuftaa minus marka waxaan oranayaa halkan waa row halkaana waa column marka waxaan oranayaa eber 8 6 9 marka waxaan oranayaa eber 8 6 9 ayaa oranayaa equal marka waxaan oranayaa -1 labadan waan isku darayaa baawaradooda waxaan oranayaa eber waxaan ku dhufanayaa 9 oo laga jaray 8 oo lagu dhuftay 6 marka kan baawarka hadduu noqdo positive
even hadduu power noqdo muxuu noqonayaa positive ayuu noqonayaa ma muujino labadan haddaa isku dhufatay waa eber maxaa isoo baxaya halkaas minus 48 ayaa isoo baxaya minus 48 weye marka waxaa isoo baxay minus 48 marka cofactors maxaa odhanaynaa halkan cofactorka ayaa iska leh cofactor maxaa odhanayaa cofactor of 1 ayaa odhanayaa 1 baa iska leh factorkiisa waxaa weeye minus 48 waan sii soconayaa cofactors of a12 ayaa isoo baxaya sin formula ku naqaanay a12 ila qaybta maxay ahayd 12 ay yahay cofactors of a12 halkan cofactor ayaa isku a12 marka waxaan sameynayaa marka cofactors of a12 haddaan soo saarto haddaan qorto cofactor aan buuxsiinayaa a12 a iyo 1 iyo 2 qoranayaa equal waxaan sameynayaa cofactors of a12 cofactors of a12 maxay yaala booskan waxa yaala afar ayaa yeesha because waa a12 waxa laga wadaa waa row iyo column ayaa laga wadaa horey baan u sheegay row iyo column ayaa laga wadaa marka row 1 iyo column 1 waxa yaala afar marka waxaan sameynayaa waxaan qoranayaa minus 1kii ilaa cofactor baan raadinaynaa labadan ayaan isku darayaa rowga iyo columnkan ilaa halkan row iyo column ayaan isku dari jiray 1 plus 2 ayaa oranayaa times minor booska yaa igoo la afar ayaa igoosha haddaan la soo baxo minorkeeda maxaan ku heli jirnay waxaan iska qarinayaa relationka column ahaan intaan ayaa leh row ahaan ayaa leh lineka ayaa leh waxaan oranayaa minorka wuxuu noqonayaa 2 iyo 3 8 iyo 9 ayaa noqonaya haddaa meeshaan kale waa hilmaamay siduusan aan u hilmaamin waana iska hubiyaa yaa iska leh waxa weeyaan wax iska leh 2 iyo 8 haddaan qorto minorkeeda 2 iyo 8 3 iyo 9 equal maxay la mid tahay minus 1 plus 3 labadan isku dhufo waa 18 oo laga jaray labadan isku dhufo waa 24 equal marka waxaan sameynayaa waxaan oranayaa equal waxay la mid tahay minus 1 ka powerka maxaa weeye waa odd isla minus 1 ka ayaa soo baxaya yani even ma ahan isla minus 1 ka ayaa soo baxaya bracket baan furanayaa labadan soo kala jir 18 haddaa ka jidhid 18 numberka weyn ayaa calaamada qaadanaya mar kaste 18 haddaa ka jidhid 24 maxay la noqonaysaa min 6 ay la noqonaysaa min 6 ay noqonaysaa min 6 bracket ayaan furaya bracket furo isla bracketkan soo qaato waa min 6 labada minus ayaa isku dhacaya waxaa soo baxaya positive 6 ayaa soo baxaya marka intaa maxay la mid tahay waxay la mid tahay cofactor of maxay la mid tahay yaa booska oolay waxaa oolay afar ayaa gashay marka maxaa la soo baxaya haddana cofactor of a13 cofactors of a13 cofactors of a13 cofactors of a13 waxay la mid tahay waxay la mid ahayd minus 1 row plus column 1 plus waxaan oranayaa 3 times minor of 13 oo lah 13 waxa oo lah 7 ayaa oosha marka maxaa oranayaa row ahaan kan ayaa la wadaagaa column ahaan kan ayaa la wadaagaa column ahaan link ayaa la wadaagaa row ahaan link ayaa la wadaagaa anaga ujeedna r iyo column marka waxaan oranayaa 2 iyo eber iyo 3 iyo 6 marka waxaan oranayaa waa 2 iyo eber iyo 3 iyo 6 waxaan oranayaa 2 iyo eber 3 iyo 6 ayaan ka wada halkaas marka inta waan raadinaa minus 1 baan oranayaa power wuxuu noqday 4 waxaan oranayaa 2 lagu dhuftay 6 oo laga jaray eber oo lagu dhuftay 3
maxay la mid noqonaysaa marka kan powerku muxuu noqday even ayuu noqday even waa numberka sileeg sooma number sileeg ayuu noqday marka halkan positive ayaa soo baxay si sileeg ayuu isku dhacay marka waxaan oranayaa halkaa 12 oo laga jaray eber maxaa soo baxaya isla 12kii marka intaa maxay noqonaysaa cofactor of maxaa oranayaa halka ayaa oolay waxa oo shay 7 ayaa oranayaa 7 ayaa shay marka intaas oo soo saartay determinant ayaan qoranayaa determinant that ma soo gaabinayaa booska ayaa oolay a2 ayaa shay a2 wixii soo marka determinant maxaa lagu heli jiray formula lagu heli jiray waxay ahayd a11 oo lagu dhuftay isaga cofactorkeeda oo lagu daray a12 oo isla lagu dhuftay cofactorkeeda a13 oo lagu dhuftay isla cofactorkeeda marka sidii ayaan qoranayaa haddaan isla sidii u qorto marka waxaan oranayaa a11 yahay oo lah 1 ayaa oo lah waa ka determinant maxay soo baxay minus 8 marka waxaan oranayaa 1 ayaa qoranayaa cofactor maxay soo baxay minus 8 ayaa soo baxay bracket oo lagu daray waa oranayaa a12 sooma a12 na a12 yahay oo lah 4 ayaa oo sha cofactorka maxay soo baxay 6 ayaa soo baxay okay a12 waxay oo shay 4 cofactorkeedana waxay soo baxay 6 formula determinant ayaa ku apply gareeyaa a13 yahay oo leh 7 ayaa oo shay sax cofactorkeedana waxay soo baxay 12 ayaa soo baxay 12 ayaa soo baxay waxaan samaynayaa marka wana hadaa ku dhufto intaan waxay noqonaysaa minus 48 hadaa intaas ku dhufto maxay soo baxaya 24 inta haddaan isku dhufto maxay soo baxaya inta ma 24 ba 32 24 way inta maxay soo baxay cofactors a1 ka koowaad moments ba isku hubi minus 48 ifun baahid waa sax see waxa u qalday waxaa ii soo baxay intaan waa sax inta isku dhufo inta hadda isku dhufto waa 14 haddaa ku dhufatid waa 84 way 84 inta waxa weeye 7 14 waxa weeye 7 84 marka waxaan sameynayaa waa isku soo dardarayaa inta waa 84 ka wadaa daan si fiican qoro sorry waa hubsanayay inaan bal waxa ilmaamkay aad buu badan yahay 84 marka kulama shaqadaada badato maaragtay ilmaamkaagu aad buu badan yahay marka waxa weeyaan iska dulqaato marka waxa weeyaan waxaan ugu maaragtay aan usoo gudbinayo aan isku faa'iideeyo waayo waxaan arkay ardayda Soomaaliyeed aad uga aqrina generic marka waxa weeye inta minus 48 way halkan waa 48 marka intaan haddii aad soo kala jidid isku dadid waxa weeye ahdaafta ku dartaa ka hormari kara adoo 48 ayaa ka jirta marka waxa ismaal sharci board masaa ismaal kara marka waxa weeye 6 ayaa ku subaxsan marka that determinant a2 maxaa isu baxday 6 ayaa isu baxday determinant a1 maxay la mid tahay a1 determinant a1 maxay la mid tahay determinant a1 maxay la mid tahay 6 bay la mid tahay determinant a2 maxay la mid tahay waxay la mid tahay 6 ayaa isu baxday marka labada determinant ayaa isla ekaaday determinant a1 maxay la mid noqotay determinant
A2 ay la mid noqotay marka maxaynu cadaynay inay isku answer soo baxayaan oo la mid ah 60 marka halka maxaynu ka fahnay halka waxaynu ka fahnay inay maaragtay halkaas waxaynu ka fahnay inta waxaynu ka fahnay haddii columnska row loo bedelo inay wax determinative isku mid noqonayo wax isbedelo dhaceen sidoo example-ka ku aragnay cashirka sharaxaadiisa aan ku aragnay marka hore aan ku bixinay haddii columnka row loo baxo ama rowska loo bedelo columnska haddii row loo bedelo marka determinative inuu isku mid noqonayo waan soo cadaynay determinant A1 determinant A2 in la mid tahay 60 in la mid tahay marka halka waxaynu ku fahnay properties 1 oo example hore ku sharaxnay qaabka u dhacaysay proofkeeda example ahaan ayaynu maanta ka bixinay waxaynu usoo gudbinaa properties 2 calaamaadka labaad calaamaadka saddexaad calaamad badan ay leedahay matriska determinant gaar ahaan qaybta determinant-ga la socod wanaagsan ayaynu leenahay waxaynu soo kordhi doonaa qaybtii calculus ayadana waa ku garab wadi doonaa waa soo kordhinaa la socod wanaagsan aad baan u mahadsantihiin thank you